mid ka mid ah qisooyinka taariikhda galay kana galay baalka dahabka qisada Sojiro Honda wiilkii yar ee ka soo bilaabay nadiifinta geerashyada ilaa uu ka sameeyay kumbani wax soo saarkiisu gaadhay soo saarista noocyada kala duwan ee gawaarida mootooyinka iyo ilaa xitaa samaynta diyaaradaha khaaska ah ee private jetska loo yaqaano. haddaba ku soo dhawaada saaxiibayaal kanaalka dadka hamiga sare leh ee Hansare. sanadu markay ahayd 1960 waxa dhashay wiil yar oo lagu magacaabo Sojiro Honda tuulo yar oo ku taala dalka Japan. waalidiintiisu waxay ahaayeen qaar markaasi ka shaqeeya shaqooyin yaryar oo ah kuwa laga qabta gacanta. Kihai Honda oo ahaa aabbaha Sojiro waxa uu lahaa goob yar oo dib loogu dayactiro isla markaana lagu hagaajiyo baaskiiladaha xumaaday. xagga hooyadiina oo lagu magacaabi jiray Mika ay ahayd dawaarley ku shaqaysata xirfadda tolidda waxaana ahayd mid ku dhex shaqaysa gudaha gurigeeda waxaana dhinaceeda ka kabi jirtay dhaqaalaha qoyska. Sojiro waxa la dhashay 8 caruur ah balse 5 ka mid ah 8daasi walaal ee la dhashay Sojiro waxay ahaayeen qaar u geeriyooday la'aanta daryeel caafimaad wax la'aanta baahsan ee haysatay qoyskooda awgood. mid ka mid ah qaababku haddaba uga bixi kara saaxiibayaal wiilka yar Sojiro xaaladan ayaa ahayd inuu ku dadaalo waxbarashadiisa si uu hadhow toolo u helo shaqo uu kaga baxo xaaladan faqriga ah ee haysatay. balse markii la geeyay dugsiga Sojiro muusan noqon mid markaasi ku fiican dhankaas iyo waxbarashada. yaraantiisii Sojiro wuxuu ahaa mid mar waliba jecel inuu awowgii u raaco dhankaas iyo beertiisa halkaasuna yaalay mishiin weyn uu lahaa awowgii kaasuna uu adeegsan jiray sifaynta bariiska. mishiinkan oo haarun ahaantii mid qadiimi ah awooddu isticmaalayaana ahayd midda batroolka ayaa ahaa mid keygaba gabaabsi ku ahaa guuxa mishiinka. qiiqa ka soo baxaya motoorka iyo urta batroolku waxay ahayd mid mar waliba uu arko farxad gelinaysay. middan ayaana ka dhigtay mid jacayl u qaada mishiinada iyo motoorada. da'diisu markay ahayd 11 jir waxa ku dhacday dhacdadaasoo ahayd mid ka sii dhigiba doonta Sojiro mid jacayl ka sii daran midkii hore u sii qaada mishiinada. waana markii ugu horreysay ee uu noloshiisa arkayo gaadhi. middan ayaana ka dhigtay mid si weyn u soo jiidata shucuurtiisa ilaa uu gaadhigii uu daawanayay ka dhaqaaqo. balse Sojiro oo aan si weynba saaxiibayaal uga wada bogan ayaan ka labalabaynba inuu eryada gaadhigii ilaa uu mar labaad ka istaagayay. markan dambe Sojiro waxa uu muuqatay in gaadhiga hoostiisa uu ka liigayo xaddi aad u yar oo batroola waxaana uu foorarsaday balse uu u eego isagoona dul saaray gacmihiisa isla waqtigaasina wuxuu ahaa mid ursanayay urta batroolka. maalinkaasina waa maalinkuu ku dhashay hamiga ah inuu mar uu samayn doono gaadhi uu isagu leeyahay. sanadu markay ahayd 1922 Sojiro waxa uu arkay qoraal xayeysiisa oo ku qoran jiray waxa jira geerash ku yaala magaalada Tokyo kaasoo lagu magacaabi jiray Arshokoya. haddaba geerashkan ayaa ahaa mid raadinayay shaqaale cusub. baryahaas dayactirka gawaadhida iyo ka shaqaynta geerashyadu waxay ahaayeen shaqooyinkii uu ku riyoon jiray sanadada. haddaba waqti badan biska muulimin Sojiro waxaanu bilaabay inuu dalabka shaqadan gudbisto oo uu apply gareeyo. nasiib wanaagna waxa uu ka mid noqdayba dadkii loo qaatay shaqada. waqtigaasina da'diisu waxay keliya tahayd 14 jir iyaday sidaa tahay haddana waxa uu soo dhaqaajiyey dhankaas iyo Tokyo si uu uga guungaadho yoolkiisa. haddaba wiilka yar Sojiro ayaa ahaa mid si weyn ugu faraxsanaa maadaama oo uu arkay in ugu dambayn uu bilaabayo ka shaqaynta shaygii uu aadka u jeclaa sanadada fara badanna uu sugayey. laakiinse saaxiibayaal dhab ahaantii waaqicu waxa uu dhigayay mid ka duwan midda. mulkiilaha geerashku wuxuu ahaa mid u dhiibay shaqo ka duwan middii uu filinayay waxaanu u diray shaqo ah inuu nadiifiyo geerashka. waxaa ka soo wareegtay bilooyin isagoo aan weli bilaabin shaqadii uu yimiday farna saarin gawaadhidii halkaasi taalay. haddaba Sojiro ayaa noqday mid si weyn u niyadjaba waxaanu ahaa mid mar kastaba ku fikiri jiray inuu isaga tago shaqadan kuna laabto dhankaas iyo tuuladiisii. balse wuxuu ahaa mid dhanka kalena ka baqayay inuu dib u wajaho waalidkiisii fashilka uu dareemayay awgii. sanadu markay ahayd 1923
waxaa dalka Jabaan ka dhacay dhulgariir aad weyn, waxaana dhulgariirkaasi loo bixiyey The Great Kanto Earthquake, burbur dhulka dhigay ku dhowaadba gebi ahaanba dhismayaashii. laakiinse nusqaan kastaaba nimcad leh saaxiibaya Sojiro midan waxay ka dhigtay mid aad u nasiib badan, maadaama oo badiba makaanigii ka shaqaynayay geerashka Arshokoya oo ahayd halkii uga shaqaynayay Sojiro ay ahaayeen qaar dibi ku noqday dhankaas iyo tuulooyinkoodii, waxayna ahaayeen qaar ku mashquulsan dib u dhiska guryahoogii. midan ayaana ka dhigtay geerashkii inay isugu soo hadhaan Sojiro iyo hal shaqaale oo kale. midan ayaana ka dhigtay mulkiilihii geerashka mid markaasi si toosa uga shaqaalaysiiya hagaajinta gawaadhida. keliya muusan baran sida loo dayactiray gawaadhida, balse waxa uu sidoo kale bartay sida loo kaxeeyo gawaadhida iyo mootooyinka. muddo yaroo kooban kadib, wiilkii yaraa ee Sojiro qof kastoo arkaaba wuxuu ahaa mid la yaabayay qaabka uu si yaroo dhaqsiya ah ugu noqday makaaniga ugu fiican ee halkaasi ka shaqeeya. waxaanu ahaa sidoo kale mid si joogtaa u helayay promotion iyo dallacsiin joogtaa. wakhtigaasi isaga waxa dalka Jabaan gudihiisa si weyn caan uga dhex noqday gawaadhida dheeraysa ee loo yaqaano motor sportska, waxaanay ahaayeen qaar hadalhayskoodu uu marba marka ka sii dambaysa uu sii xoogaysanayo. haddaba mulkiilihii Arshokoya oo si weyn ugu tuumayay Sojiro xirfadiisa aadka u sarraysa ayaa ka dalbaday Sojiro inuu rakibo gaadhi nooca motor sportska. intaasi kadib Sojiro waxa uu bilaabay inuu u howlgalo samaynta gaadhigan, waxaanu soo qaatay injiin second hand ah. injiinkan oo ahaa injiin Amerikaan ah, markiisii horena ahaa injiin diyaaradeed, ayuu ku rakibay qolfadii gaadhiga Mitchell oo ahaa isaguna sidoo kale gaadhi Amerikaan ah. waxaanu ka soo saaray sugeyntoodii gaadhi sportis, waxaanay gaadhigan u bixiyeen Curtis. haddaba saaxiibayaal, sannadu markay ahayd 1924kii waxaa jiray tartan ay qabatay dowladda dalka Jabaan, kaasoo lagu magacaabayay Japanese Motor Car Championship. haddaba maalinkaasi markuu tartanku soo gabagaboobay, waxa kaalinta ugu horreysa ama koowaad soo galay gaadhigii Sojiro uu sameeyey ee Curtis, oo ka mid ahaa gawaadhidii tartanka lagu gelayay maalinkaas. tartankan Sojiro waxa uu ka dhigay injineer shaqadiisa la aaminsan yahay laguna kalsoon yahay, taasoona Sojiro u ahayd experience iyo cilmi cusub oo u soo kordhay. intaasi wixii ka dambeeyey, gawaadhida sportisku waxay ahaayeen qaar Sojiro u noqday kuwo uu qaado jacayl hor leh, balse waxba kamuusan ogeyn in xiisaan cusub uu qaaday gawaadhida sportisku ay noqon doonto mid si gebi ahaanaba u bedeli doonta noloshiisa. 1928kii, geerashkii uu ka shaqaynay Sojiro ee Arshokoya wuxuu ahaa mid go'aansaday inuu furto qayb kale ama laan kale. waxaanu rabay inuu ka furto tuuladii Sojiro ku soo koray oo lagu magacaabi jiray Hamamatsu, waxaana madax looga dhigay qaybtan Sojiro, isagoona keliyaata wakhtigaasi ay da'diisu ahayd 21 jir. balse isla wiilkaasi yar sannadayro kooban ka hor wuxuu ahaa mid aan loo ogolayn inuu xitaa taabto gawaadhidii halkaasi taalay. intaas kadib, haddaba isla xilligaasi qof kastaaba waxa uu rajaynayey ama uu malaynayey inuu isla markiiba si dardad leh ay u shaqayn doonto xaruntan cusub, balse midda dhacday ayaa ahayd run ahaantii mid ka duwan midda. xaruntu waxay noqotay mid si weyn u guuldaraysataa. da'da Sojiro oo aad u yaray oo ahayd keliyaataba 21 jir waxay ka dhigtay dadkii badankooga saaxiibayaal qaar xaasida, iyagoo u arkayey kuna eedaynayey inuu meel uu maamulayo wiil yaroo koraya aanay ku aamini karin gawaadhidooda. sidaa daraaddeed meheradu waxay ahayd mid bilaa macaamiil ah oo haawanaysa. haddaba Sojiro si uu u joojiyo dhiigbaxan ugana hortago inuu xidhmo geerashku, waxa uu u baahan yahay inuu la yimaado xal degdeg ah oo uu ku badbaadinayo meherada. Sojiro wuxuu maqlay in wakhtigaasi isaga ah uu jiray gaadhi hagaajintiisa loo caal waayey, isagoona markaasi geerash kasta loo geeyaaba uu ku guuldaraysanayay hagaajintiisa, iyagoona ku tilmaamay gaadhigan inuu yahay midaan sinaba macquul u ahayn in la hagaajiyo. balse wiilka yara Sojiro oo lahaa aqoonteedii ayaanay ku qaadanba saacado inuu hagaajiyo isla gaadhigan. haddaba saaxiibayaal, middan kadib, sida sunnaha dunidu yahay, middan waxay Sojiro ka dhigtay mid yeesha tixgelin iyo sumcad aad u sarraysa. middan oo sidoo kale ka dhigtay meheradii Sojiro mid si weyn u kala socota oo u shaqaysa. 1931dii waxay da'da Sojiro soo gaadhay 25 jir,
isla markaasina meheradu waxay ahayd mid uu ka soo gelayey ama uu ka samaynayey kharash aad u fiican. waxaanu shaqaalaysiiyey 50 shaqaale ah isagoona ka dhigay tiim si weyn isugu xidhan. haddaba saaxiibayaal, intii lagu guda jiray wakhtiyadan, Sojiro muusan ahayn mid keliya dib mar labaad u bilaaba rakibidda noocyada kala duwan ee gawaadhida sportiska, balse waxaa mid sidoo kale si toosa uga qayb gelayay tartamada gawaadhida dheeraysa, isagoona isla markaasina ku soo bandhigay xirfadiisa darawalnimo xagga uu si lamidana ku tijaabinayay awoodda ay leeyihiin gawaadhidiisu. sannadu markay ku beegnayd 1936, Sojiro Honda iyo tiimkiisii shaqaalaha ahaa ee uu isagu dhisay waxay ay qaar ka qayb gala tartamadan. xagga tiimkan shaqaalahana ay shaqadiisu ahayd inay dayactiraan dhankaas iyo dayactirka gaadhiga uu ku geliya tartanka. waxay ahaayeen qaar ka qayb galay tartamo aad u fara badan, iyagoona ka soo hooyay guulo aad u waaweyn, soona qaaday koobab aad u tiro badan. balse isla sanadkaasi bishiisii Julaay, isagoo ka qayb galaya mid ka mid a tartamadaasi saaxiibayaal, waxaa soo wajahay gaadhigii Sojiro shil aad u xanuun badan, taasuna ka dhigtay Sojiro mid isla bartaasi ku gala koomo, waxaana loola cararay dhankaas iyo xusbitaalka. haddaba markii uu saaxiibayaal Sojiro indhaha soo kala qaaday mar labaad, wuxuu ahaa mid xanuun baahsan ka dareemayey guud ahaanba jidhkiisa. wejigiisu wuxuu ahaa mid dhaawac xooggan ka soo gaadhay, kana burburay lafaha hore gacmihiisa. middan ayaana haddaba saaxiibayaal ka dhigtay Sojiro mid gebi ahaanba iska dhaafa tartamadii gawaadhida, waxaana ku qaadasay muddo 18 bilood ah inuu gebi ahaanba ka soo kabto dhaawacan. intaa wixii ka dambeeyey waxa uu bilaabay inuu warshadeeyo oo uu soo saaro qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gaadhigu. haddaba isla wakhtigaasi Sojiro wuxuu ahaa mid furanayay meheradiisii ugu horreysay ee uu isagu khaas u leeyahay, middaas uuna u bixiyey Tokyo Seiki. waxaanu halkaasi ka shaqaalaysiiyey 50 shaqaale ah. xagga meheradii horena mas-uuliyaddeeda uu ku wareejiyey tiimkii shaqaalaha ahaa ee uu halkaasi ka aasaasay oo ahaa qaar uu si weyn u aaminsanaa. waxaanu soo iibsaday markaani mashiinno qaali ah, kaasuuna ugu talagalay inuu ku sameeyo spare parteska injiinka. gaar ahaanna wuxuu rabay Sojiro inuu si khaasa u sameeyo giraanta bistoonka, middaasuuna muhiim u ahayd gaadhiga, halka baahida loo qabin ay ahayd mid baaxad leh. laakiinse Sojiro muusan ahayn mid waaye aragnimo hore u lahaa samaynta giraanta bastoonka, waana sababtay uga digayeen qoyskiisa iyo asxaabtiisu bilaabista ganacsigan, iyagoona uga baqayay inuu ku khasaari doono maadaama uu soo iibsanayay Sojiro qalabbo waaweyn oo qaaliya. balse Sojiro muusan ahayn mid ku raaxsan midda, waxaanuu ahaa mid u badheedha riskiga, isagoona isku hadlaynayay waaye aragnimadiisa iyo aqoonta u lahaa dhankaas iyo makaaniga. waxaanu ugu dambayn si rasmiya u furay warshaddii. middani waxayna tusaysaa saaxiibayaal sida ay muhiimka u tahay inaad nolosha ku dhiirato. haddii ay kuu noqoto sidaad doonaysay, alxamdulillaah. haddii ay kuu noqon weydana, waxaad ka baranaysaa cashar, oo waxaad baranaysaa hal qaabo in ahayn in loo maro xaqiijinta shaygaad rabtid. intaasi kadib, Sojiro waxa uu ahaa mid bilaabay inuu ka dhinac shaqeeyo shaqaalihiisa maalin iyo habeenba gudaha warshaddiisa. waxaana sidaasi ku dhammaaday bilooyin badan, waxaana markan Sojiro ka dhammaaday saaxiibayaal dhammaanba lacagihii uu ugu talagalay mashruuciisa, xilli uu ahaa mashruucu midaan si rasmi ah weli wada dhammaan, oo waxa uu ahaa mid qabyo ah. taas baana ku kaliftay inuu dib u iibiyo silisyo macaadiin ah oo lahayd xaaskiisu si ayna u istaagin warshaddu. balse isagoo waxaasi oo dhan samaynayay, haddana waxa uu ahaa mid ku guuldaraysta oo ku fashilma inuu soo saaro giraan bastoon oo saxa. ugu dambayntiina Sojiro waxa uu yaqiinsaday markaan inaanay aqoontiisu ahayn mid ku filan si uu u soo saaro qalabka saxda ah ee loo baahan yahay. tanina waa sababta isagoo 31 jir ah uu mar kale dib ugu noqday dhankaas iyo dugsigii sare, si uu markaasu si fiican ugu soo barto maadada meteorology-ga oo muhiim u ahayd si uu u sameeyo qalabkan. ugu dambayntiina sannadu markay ahayd 1937, Sojiro Honda waxa uu si rasmi ah soo saaray markaan oo uu ku guulaystay samaynta giraanta bastoonka. intaasi kadib, 2 sano ku xigay, Sojiro muusan ahayn mid qalabkiisa u iibgeeya shirkadaha Toyota iyo Suzuki, waxa uu sidoo kale ahaa mid sameeya spare parteska mashiinada ay isticmaalaan ciidamada badda dalka Japan.
1940kii Soichiro wuxuu ahaa mid qorsheynayay qorshe aad u weyn oo haddii uu sameeyay si xawliya kor ugu qaadi doonta horumarka ganacsigiisa. laakiinse waxaa ka soo dhex galay qorshahan mushkiladii dagaalkii labaad ee dunida. xilligaasina dalka Jabaan wuxuu ahaa mid dagaal kula jiray dowladdii markaasi ee Maraykanka. haddaba maalin maalmaha ka mid ah mid ka mid ah diyaaradihii dagaalka ee dalka Maraykanka oo wadid duqeyn xagga cirka ah ayaa waxyeelo baan soo gaadhsiisay burburisina qorshihii Soichiro. waqti kadib Honda wuxuu ahaa mid ka soo kabanayay dhibaatadan soo gaadhay, balse isla markale sannadu markay ahayd saaxiibayaal 1945kii waxaa tuuladii Hamamatsu ku dhuftay dhulgariir aad u baaxad weyn, midanoona ka dhigtay markan qorshihii mid si gebi ahaanaba u burburay. dagaalka kadib dowladdiisii Jabaan oo isdhiibtay iyo dadaalkiisii uu inta muddada ahba soo waday waxay ahaayeen qaar labaduba burburay, midanoona ka dhigtay mar labaad inuu siiro ka soo bilaabo. Soichiro waxa uu go'aansaday dagaalka kadib markaan inuu iibiyo wixii qalab ka soo hadhay kumbanigiisa. intaasi kadib waxa uu noqday mid in muddo ahba iska nasta oo bari ka qaata wax kastoo la xidhiidha shaqo. haddaba intii lagu guda jiro wakhtiyadan waxaa Soichiro gacantiisa soo gashay jenerataro yaryar oo ay lahaayeen ciidamadii Jabaaniisku, kaasina u isticmaali jireen ciidamadu inay ku socodsiiyaan ama ay ku rangareeyaan raadiyayaashii wirelesska ahaa ee askartu iskula xidhiidhi jirtay. haddaba baadhitaano badan uu ku sameeyey injiinkan Soichiro waxaa ku soo dhacday fikraddaasoo hadhow tolaba aasaas u noqon doontaa kumbaniga aynu maanta wada naqaano ee Honda Company. run ahaantii dagaalka kadib waxaa jirtay saaxiibayaal gabaabsi ka jiray dhankaas iyo shidaalka, taasuna ugu wacnayd qiimaha shidaalka oo ahaa mid qaali ka noqday gebi ahaanba dalka Jabaan. midanina waa sababta aad u arkaysay in dhammaanba ama badiba ku dhowaad shacabka Jabaaniisku ay ahaayeen qaar meel kasta ay tegayaan ugu safri jiray baaskiiladaha. midan ayaana ka dhigtay Soichiro inuu ku fikiro inuu isla baaskiiladahaas ka dhigo qaar u shaqaynaya sidii mooto oo kale, isagoona rabay inuu mishiinno yaryar saaro baaskiiladahaas. haddaba si uu hawshaas iyadaa u galo Soichiro waxa uu furay xarun yar oo uu bixiyey Honda Technical Institute sannadu markay ahayd 1946kii. haddaba Soichiro adeegsanay xirfadiisii iyo aqoontuu lahaa makaaniga waxa uu ahaa mid wax ka beddel ku sameeyey jeneraytaradii yaryar ah ee dagaalka kadib gacantiisa soo galay, isagoona ku rakabay baaskiiladihii, midanoona ka dhigtay mooto baaskiiladaha caynkan oo kale ah qaar aad u jaban lana awoodi karayo. waxaanu sidoo kale noqday qaar isla markiiba iibkoogu guulaysto. laakiinse waxaa jirtay saaxiibayaal laba mushkiladood oo haysatay Soichiro. midda koowaad oo ahayd in mishiinada u hadhay ay ahaayeen qaar xadidan oo waxaaba u yaalay 500 oo xabo quryaata. midda labaadina waxay ahayd in xitaa sidoo kale injiinadan ama jeneraytaradan ay askartu lahaayeen ay ahaayeen qaar isticmaalayay sidoo kale ama markaasi ku shaqaynayay batroolka. sida aynu soo sheegnay haddaba saaxiibayaal waxuu ahaa qiimaha batroolku mid aad u qaaliya. haddaba si uu u xaliyo mushkiladan Soichiro waxa uu bilaabay markaan inuu nashqadeeyo isla markaasina uu dhiso injiin uu isagu leeyahay. waxaana uu isticmaalay injiinkan cusub uu sameeyey samaynta mooto baaskiladihiisii xigay. waxyaabaha qaaska u ahaa haddaba mooto baaskiladan Soichiro samaynayay ayaa ahaa inaanay u baahnayn in si 100% ah ay u isticmaalaan batrool si ay ugu shaqeeyaan, balse waxay ahaayeen qaar isticmaalo isku jir ka kooban maadada alkohoolka oo lagu barxay maadada batroolka, taasoona si toos ah oo bilaa cilada loogu isticmaali karayay mooto baaskiiladaha uu Soichiro samaynayay. tanina waxay ahayd sababta ay muddo yaro kooban hawada ugu galeen ganacsigii mooto baaskiiladaha Soichiro. midan kadib Soichiro wuxuu ahaa mid ku riyooda inuu sameeyo markaan mooto caadiya. si uu haddaba midaas uu sameeyey markaan waxa uu aasaasay kumbani ugu magac daray Honda Motor Company. haddaba sannadun kadib midan 1949kii waxa uu si rasmi u sameeyey mootadiisii ugu horeysay ee caadiya, waxaana ugu magac daray magaca Dream. balse saaxiibayaal mootadan waxay noqotay mid suuqa ku guuldaraysataa, inkastoo dhisaynka iyo isbiidhka mootadan ahaayeen qaar aad u fiican. haddana waxaa dhanka kala jirtay hal cilad.
ciladaasoo ahayd in mootadan ahayd mid aad u culus sida loogu dadaalayay samaynteeda awgeed, balse middan waxay khasab ka dhigtay in qiimaheedu uu noqdo mid aad u sarreeya, oo waxay ahaayeen qaar birlibaaxa oo aan weligood waxba noqonayn sida moobilada Nokia oo kale. Balse saaxiibayaal, markaad ganacsato tahay waa sida uu suuqu rabo ee maaha sida aad adigu rabtid. Haddaba middan ayaana ka dhigtay qaar markaasi iibsigooda ay awoodi karayaanuun in yaroo ka mid ah dadka reer Japan. Haddaba markii uu saaxiibayaal yaqiinsaday Soichiro guuldaradan ka soo gaadhay suuqa, wuxuu ahaa mid markaasi go'aansaday inuu ganacsigiisa ku saleeyo rabitaanka shacabka dabaqadda dhexe, waxaanu sameeyey mooto la jaan qaadaysa jeebka badiba shacabka reer Japan. Haddaba mushkiladda keliya ee ka hortaagneyd ayaa ahayd in injiinada uu ku samaynayay mootooyinkan ay ahaayeen qaar aad u culculus, kuwaasuna awoodda ay generate garaynayeen ama ay soo saarayeen ay ahayd mid aad u sarraysa, taasuna ka dhigaysay in culayska gebi ahaanba mootadu uu noqdo mid aad u sarreeya. sidaasi daraaddeed sannadu markay ahayd 1952kii, Soichiro waxa uu go'aansaday dhisaynka samaynta injiin uu ugu magac daray Cab, kaasoo ahaa mid cabirkiisu yahay mid aad u yar, laakiin si yaraantiisa ku darsaday soo saarista awood aad u tiro badan. Ikhtiraacaan cusub ee Soichiro wuxuu ahaa mid aad u weyn oo lala fajaco lanala yaabo marka loo eegayo samankaas, waxaanu ku qaatayba markii dambe samaynta middan jaysadda ay bixiso dalkiisa Japan ee loo yaqaano Blue Ribbon Award. balse iminkii haatan saaxiibayaal injiinkii waa diyaar, waxa keliya tee dhiman waa samaynta qolfadii mootada oo casri ah. haddaba middani markaasi si uu u sameeyo Soichiro waxa uu ahaa mid badiba ku wareegayay dhammaanba dunida si uu ula kulmo injineero kala duwan oo ku takhasusay nashqadaynta mootooyinka. ugu dambayntiina sannadu markay ahayd 1958kii waxa uu sii daayay mootadiisii cusbayd ee uu inta muddada ahba ku howlanaa, isagoona u bixiyey Super Cab. Super Cab waxay ahayd mid qiimaheedu yahay mid la awoodi karo, sidoo kalena waxay ahayd mid tayadeedu tahay mid laysku halayn karo. middan ayaana ka dhigtay mid gebi ahaanba reer Japan ay awoodi karayaan kaxaysigeeda, middanoona ka dhigtay in gebi ahaanba suuqa ay ka saarto kombaniyadii waaweynaa ee soo saari jiray mootooyinka. bilowgii sannadii 1960kii oo ahayd ku dhowaad sannaduun kadib, waxay ahayd Honda mid ku jirta oo markaasi gasha kaalinta koowaad ee suuqa mootooyinka. intaasi wixii ka dambeeyey sannadba sannadka ka sii dambeeya, Honda waxay ahayd mid sii ballaadhanaysay iyadoona bilowday markaan inay dalka dibaddiisa u dhoofiso malaayiin mooto. balse suuqa ugu weyne saaxiibayaal mootooyinku waxa uu ahaa mid ka jiray dhankaas iyo Maraykanka. inkastoo sumcadda mootooyinku ku dhex lahaayeen dalka Maraykanku aanay ahayn mid aad u wanaagsan, maadaama badiba dadka Ameerikaanka ah ay ka dhaadhacsanayd inay mootooyinka kaxaystaan oo quryaata dadka dambiilayaasha iyo gaangiska oo quryaata. haddaba Soichiro iyo tiimkiisu waxay gudaha dalka Maraykanka ka bilaabeen olole xayeysiin ah oo ay ku wanaajinayaan sawirka foosha xun ee laga haysto mootooyinka. haddaba si uu sawirkaasi u bedelo, waxa uu ku xayeysiinayay mootooyinkiisa bogagga hore ee jaraa'idadii ugu waaweynaa ee ka soo baxayay dalka Maraykanka. laakiinse waxay ahaayeen saaxiibayaal qaar aad u maskax badan oo maysan isticmaalayn kelmadda motorcycle marka ay qorayaan xayeysiimahooda, maadaamay rabeen in shacabka Ameerikaanku ay aqbalaan mootooyinkooda. waxay ku bedeleen kelmaddii motorcycle jumladan ama halku-dhiggan "You meet the nicest people on a Honda." waxaad la kulantay dadka ugu fiicfiicnaa ee Honda, iyagoona taargetkoogu ahaa saaxiibayaal ardayda, dadka ka shaqeeya shaqooyinka gacanta laga qabto iyo dumarka guri joogta ah. istaraatiijiyadan cusub ayaa noqotay mid si weyn u guulaysatay. kadibna intaa, Honda waxay gudaha Maraykanka ku dhex noqotay multi-million-dollar company. 1960meeyadii, Honda waxay ahayd mid qabsatay ku dhowaadba 40% sheerarka suuqa mootooyinka. taasoo keliya ta kuma istaagin Honda ee waxay ahayd mid ka soo daba saaraysay moodeelo kala cayn ah oo qaarba qaarka kale ka sii horumarsan yihiin, taasoona ka dhigtay bilowgii 70meeyadii kombanigii Honda inuu noqdo kombaniga ugu weyn ee soo saara mootooyinka dhammaanba dunida. laakiinse saaxiibayaal, Soichiro riyadiisii ugu weyneyd ee yaraantiisii weli ma aha mid hirgashay.
samaynta iyo dhisidda gawaadhigu isagu leeyahay. 1960meeyadii ilaa bilowgii 70-nadii dalka Jabaan waxaa mar horeba ka shaqaynayay oo markaasi ka howlgelayay kumbaniyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Toyota, Nissan iyo sidoo kale Suzuki, iyagoona markaasi ahaa qaar xukumayay suuqa gawaadhida. La tartamidooda xagga suuquna waxay ahayd mid aad u adag, waana sababta dad badan oo soo jiira aqaanay ay uga qabanayeen inuu galo suuqan warshadaynta gawaadhida. balse saaxiibayaal Soojiro wuxuu ahaa mid mar horeba gaadhay oo qaatay go'aankaas. bilooyin badan oo kharash iyo wakhti iyo tacab badan kadib 1963kii waxa uu sii daayay gaadhigiisii ugu horreeyey ee 4 taayirla ah, laakiinse muusan ahayn gaadhi caadi ah oo waxa uu ahaa saaxiibayaal xaajiyad ama pick-up taraad, waxaana uu bixiyey T360. balse saaxiibayaal xaajiyadan T360 maysan noqon mid suuq yeelata. taa beddelkeeda xaajiyaddan waxay noqotay mid xitaa ku guul daraysatay in suuqgeyn loo sameeyo oo la xayeysiiyo. bilowgii ugu horreeyeyba Honda umaysan ahayn bilow qurux badan, laakiinse sidii caadada u ahayd Soojiro wuxuu ahaa mid aaminsanaa mindsetka never give up. haddaba saaxiibayaal, maadaama uu Soojiro ka gaadhay guulo waaweyn dhankaas iyo samaynta mootooyinka, waxaa dhanka kalena berber socotay waayo aragnimadu ka dhexlayay marka ay timaado dhankaas iyo daboolidda baahida suuqa. haddaba saaxiibayaal, middan si uu ugu dabaqo kumbanigiisan gawaadhida ee cusub, taariikhdu markay ahayd 1967 waxa uu soo saaray gaadhi uu ugu magac daray Honda N360. gaadhigan oo ahaa gaadhi faamili ayaa ahaa mid uu ku dabaqayay inay iibsigooda awoodi karaan badiba qoysaska reer Jabaan. sidoo kalena gaadhigan wuxuu ahaa mid ka jaban 25% gawaadhida kale ee caynkiisa oo kale ah. taasina waxay ahayd sababta markii sidaas loo sii daayay gaadhigan uu suuqa u galay si khayral caadiya. laakiinse si uu kumbanigu si weyn ugu guulaysto saaxiibayaal, wuxuu u baahan yahay inuu suuqyada caalamka guulo ka soo gaadho. 1970nadii Soojiro iyo shirkadiisii Honda waxa u muuqatay fursad aad u weyn. wakhtigaasi isaga ah badiba dhammaanba caalamka waxaa ka jirtay mushkilad shidaal yaraan ah, taasoona ka dhigtay shidaalka mid aad u qaaliya. islamida dowladdii xilligaasi ee Maraykanku waxay ahayd mid si weyn uga walaacsan dukhowga hawadeeda, taasoona sababaysay qiiqa badan ay samaynayaan ama ay soo daynayaan gawaadhidu. haddaba amarada iyo baaqyada ka imanaya dhankaasi dowladda Maraykanku waxa ugu dambeyn ka dhigtay in kumbaniyaadkii gawaadhida soo saarayay lagu soo rogo amaro aad u adag, taasuna ku khasbaysay inay wax ka beddel ku sameeyaan injiinadooda si ay u yaraato qiiqa sunta ah ee injiinadooda hawada ku sii daynayaan. balse dhammaanba kombaniyadu diyaar umaysan ahayn midaas inay sameeyaan, maadaama ay u arkayeen in haddii ay sidaasi sameeyaan inay dhaqaale aad u tiro badan kaga bixi doonto. taas baana ka dhigtay inay qabsadaan looyaro khatar ah islamarkaana difaaca rabitaankooda. balse Honda waxay ahayd mid iyadu qabsatay injineer cajiib ah beddelkii ay qabsan lahayd looyar cajiiba. waxayna iyadu markiiba bilowday inay dib u farsamaysay injiinadeedii kana dhigto qaar ka wanaagsan sidii hore. sidoo kalena waxay ahayd mid ku salaynaysay oo markaasi ku dabaqaysay shuruudihii ay soo rogtay dowladdii Maraykanku. injiinkan oo ahaa Compound Vortex Control Combustion loona soo gaabiyey CVCC ayaa ahaa mid wacdaro ka dhigayay suuqa gawaadhida. keliya muusan ahayn mid u wanaagsan hawada iyo deegaanka ee waxa uu ahaa sidoo kale mid isticmaalayay shidaal aad u yar. 1975kiina Honda waxay ku lifaaqday injiinkeedan cusub dufcaddii xigtay ee gaadhigeedii Honda Civic, taasoona ka dhigtay macaamiishii gaadhigan iibsanayay qaar ka bixiya faalooyin aad u wanaagsan oo cajiiba. islamidana waxa uu riyaaqday dowladdii dalkaasi Maraykanka iyadoona ahayd mid si weyn u soo dhoweysay gaadhigan. intaasi kadib moodeelka Honda Civic waxa uu noqday mid ka mid ah gawaadhida ugu shacbiyadda badan dhammaanba dunida oo dhan, waxaana ilaa iyo maanta shirkaddu tahay mid soo saarta update-ka moodeelkan. haddaba guushan kadib Honda maysan ahayn mid soo eegta gadaal, taa beddelkeeda waxay ahayd mid hiigsataa xidigaha, waxaana iska soo daba dhacayay isla markaana ay soo saaraysay shirkaddu moodeelo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Honda City iyo Honda Accord. ugu dambeyntiina Soojiro Honda wuxuu ahaa mid sameeyey kana dhabeeyey rumaynta riyadiisii, isagoona soo saaray gawaadhi farxad gelinaysay macaamiishiisa. wiilkii yaraa ee ku soo koray mid ka mid a tuulooyinka yaryar ee dalka Jabaan, balse lahaa riyada aadka u weyn
waxa uu noqday mid ka dhabeeya rumaynta riyadiisii. Sojiro Honda waxa uu ina leeyahay guushu waa maxsuulka ka dhasha kadib 99% guuldarro ah. Waxa dhammaanteen inugu beeran cabsida aynu ka qabno guuldarrada, laakiinse qisada Sojiro waxay inoo caddaynaysaa isla markaana inoo tilmaamaysaa inay guuldarradu tahay qayb ka mida guusha, si la midana guuldarro kasta ay tahay fursad iyo opportunity aynu wax kaga baranayno, isla markaana aad ku dabaqaysid tallaabada xigta ee aad u qaadaysid rumaynta hadafkaada. Cabdiqani Top 10. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.